Asxaabta qaaliga soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Fadlan hadduu muuqaalkan ku soo gaaro, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u aragto muuqaal waliba aan soo geliyo. Gabadhan aad u jeedaan halkaan jiifta ma xanuunsana, meelma lagama haayo, laakiin quruxdeeda un bay ziyaadinaysaa. Waxaa loo xirayaa ilko qalin ah. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku fikiraan ilkaha qalinka ah markaad gashanaysid waxaad dareemaysaa xanuun ama dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan inay ku fikirayaan ayaa laga yaabaa. Balse muuqaalkan daabo, ilkaha qalinka markii lagu xiraayo waxay la mid tahay sida adigoo cadaysanayo oo kale. Wax xanuun ama dareemaysid si qurux badan. Dumarka inta badanna aad bay ugu quruxoon yihiin ilkaha qalinka ah. Walow hadda ragga aad arkaysaaba ilkaha xiranayo ma fahanti. Kolay waxay u xiranayaan ma aqaano, laakiin ana ma jecli inaan aniga shakhsiyan inaan qalin xirto. Laakiin waan rajeynaa saaxiibadeyda inaan u xiro. Ayadaba inay tahay laga yaababa. Waxaan wax walba soo gelina ama fiirso ama isdhaafi adeeg ku taala. Hadda ilkaha suufa loo geliyo u jeedin cirka la kala qaadaya dhac. Macnaheedu ilkaha markii la gelinayo muhiimadu waxay tahay iligaaga iyo qalinkaaga in la isku cabiro waa. Markaas ka bacdi afkana saana u kala qaadaysaa. Haddii taxsi askaga aruur nasiibkaaga qabtaa. Ilaa adaa lagu shaqeynaya muddo. Diktoorkan horta inaba caadi ma ahan. Waa diktoor aad iyo aad u daayar isniya handana farsamada aad ugu dheereeya oo jeedada. Shaqa sharaf la shaxaada aad ah. Tooshka lagu aadinaa macnaheedu sida loo arko qofka cirkiisa loo arko. Binaadamku isku mid maahan. Dadna lacagta xoog iyo hirig ay ku raadiyaan. Hadda shaqadu waa loo dhameeyay jeedada. Hadna maxaa suugahay muuqaal xaqiiqo la suugahay. Xaasidnimada iska dhaaf asxaabi.